Nimependa kurefusha mada kwa sababu hii moja. Kuna mgeni wetu, mheshimiwa wetu, Sheikh wetu mkuu kabisa, anayearifika kwa jina la Sheikh Abdirazak Jir. Makofi kwa Sheikh wetu, Sheikhuna al-Fadhil, Sheikh Abdirazak Jir, na yote yale ambayo anayofanya iwe ni hasanat miongoni mwa hasanati zake katika maisha yake ya mbeleni huko akhera. Nisiwe mwingi wa kuongea, ningependa kumkaribisha kiongozi wangu, mwalimu wangu Sheikh Abdurrahman aweze kumkaribisha kwa heshima kubwa na taadhima ya hali ya juu kiongozi wetu, Sheikh Abdirazak. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد. والدين تمرك الله إنكم صلابتي أنا speech كيجي هذا الكيجي مرهران دميي وحيلاي مهديسة شرفنا إنه نوي ماذا our chief guest, our special guest of honor, الوالد الشيخ عبدالرزاق عبد الله, the general director of Ansar Sunnah Trust. So let us join hands and welcome him. فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مهجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. معاشر المسلمين، بعد شكر الله تبارك وتعالى وحنكون شكرنا يا دمان dadka goobta isugu yimi oo ugu horeeyo ninka martida loo yahay oo maamuuskan iyo golahan iyo xafladan qiimaha iyo qaayaha huwan martida loogu yahay. waxaan kaloo ku mahadinayaa waalidiinta oo rag iyo dumarba leh, dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba leh, marti sharafka, macallimiinta markaz al-Adaala iyo maamulkooda guud, dhammaantiin bacda shukri Illaahi tabaaraka wa tacaala waa idinku shukrinaya. xaqiiqan wa xaqiiqatan xafladan oo kale oo lagu maamuusayo arday diin la baray, qur'aan la baray, maxay ahayday tarbiya la baray, gacan wanaagsan lagu hayay, oo la soo koolkooliyey, oo hooyo iyo macallin u dhaxeeyey, aabe iyo maamule u dhaxeeyey, galab iyo aroor maxay ahayday subaxna kala hayay, galabna caraabayay oo dhalandhoolayay. miraheedii iyo natiijadoodii in la gurto dadkii ka shaqeeyey si gaar ah oo gooniya baan ugu shukrinayaa bacda shukri Illaahi tabaaraka wa tacaala. dhammaantiin oon kala har lahayn waa idinka cudur daaranayaa. waxaan ku soo daahay xaflad kale iyo muxaadaro kale. waan ogaa xafladan waana la iga yeeray muddo 20 casho ku dhawaad baa la ii sheegay, laakiin muxaadaraan meel ku lahaa baan ku soo yara habsaamay. laakiin aanba soo habsaame ma maqnaan. waxay yidhaahdaan soo daahiddu waxay dhaantaa maqnaashahay dhaantaa. marka waa idinka cudur daaranayaa. ta saddexaad, xafladan oo kale waa xafladaha uu ilaahay jecel yahay. waa xaflad lagu qadarinayo kitaabkiisa, waa xaflad lagu qiimeynayo qur'aanka, waa xaflad dhalaankii maxay ahayday lagu farax gelinayo.
حفلدهن وكله وحفلده النبي يري صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله فيما بينهم إلا حفت عليهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وحفلة قيمها إيقايها إلهي أكتيس كله وحفلة ملائكة إلهي أكتوكتا لو فانا يو لو شيغ يو لو أرنيو ورآذنه أن دريدكو أبوري أو نفي شيطان إلى حريرين أو كبحصدي أو كتاب كيجي قبصدي أو قعنت مذيكو قبصدي أو هويو ويل كيدي قبدي أرورتي كله هنيسا أبو علمه لعقتي كبحنيا كور دوريا ما ملكي ويدينيا معلن دنجد إيا ألثتا وإلمه قرآنك حفظ سينيا ويلير وقرآنك حفظينيا وكل قينيا وجزء عما يجوز تبارك ياسينيو كالبركة البقرية العمران لبري ودرجة الرئيساوي قبر حجابنا وير ودينت إلهي وكالله يسا وقلبتي كالله يسا وحشون يسو أستران وكتابك قعنت مذي كسيدتا ووحو إلهي كفانوي ووحو إلهي سبحانه وتعالى نحريستي كسو دجيوي ووحو إلهي سبحانه وتعالى وجعليها يوي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله قرآن كيسو أخرنيا isu meerinaya ku subcinaya dareeris dhageysanaya hor darsi maxay ahayd horjeeda bixinaya quraan socda arooriye galab ilaahi baa jecel subhanahu wa ta'ala natiijadu maxay noqotay malaa'ik baa hareereynaysa malaa'ik ayaa gaar ka haysa caruurtan yar yar waad aragteen meeshaan ku hayno iyo isli iyo ciriirigeeda iyo dhibaatada jirta haddana waxyeelo ma jirto dhibaato ma jirto mootooyinka waa ka badbaadnay tuugta waa ka badbaadnay gaalada waa ka badbaadnay waxaasi waxa keenaya quraankan aroor walba hooyo iyo aabe iyo wiil iyo gabar macallin iyo maamule dhamaantood la wada kalahayo waxa lagu badbaadaya waxa weeye maxaa yeelay ilaahay wuxuu yiri nabiga wuxuu yiri wahaffat alayhimul malaa'ika malaa'ik baa isku weer ka haynaysa malaa'ik baa xifdinaysa malaa'ik baa difaacaysa taa waxa dheer ilmaha yar yar quruxdooda eeg maxaa yeelay ilaahay baa dejinaya ilaahay baa raxmad siinaya wanazalat alayhimur rahma sakina naxariis iyo sakiina ilaahay baa ku soo degaysa waa caruur baa riyaala waa wiilal fiican waa gabdho fiican oo waalidkii ay ku faraxsan yihiin aabihii uu ku faraxsan yahay macallinkii uu ku faraxsan yahay dariskii ay maxay ahayd ay kamanayaan weeye waa adigu wanaagaas oo dhan taa waxaa dheer aakhirana wanaag baa uga horeeya وذكرهم الله في من عنده ملائكته إلهي وشيغايا وأرانايا كواسي رالي بان كنقضي بالإيغا كواسي يكوى دلي يكوى وحبري انتو ذبا رالي بان كاهي وحديثك النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ذلك وحاقو خير بدن أرديد القرآن كبرانيسا يا والد كدبتشوغا يا برا يا قرآن يا معلنك أبيه هو يدي كل وسوق ليان خيركم من تعلم القرآن وعلمه حقيقة مقالدان أما حافظانا نشوغنو أو إسلية أو صومالي حرونتي ذا أو بقلالك كوني جوغتو أرورتي مركا كاللحظو وفرحيسا وحاركيسا المير أو قرآن لو سي وضو أو كتابك كالفرية أو طريقك أخرينيا انتو سندوس إيقارين سي حفظينيا قبل حجابا أو كتابك وطا أو هو يضو قعنتا هيسو أو الله سي وضو توبانية كن أيا دوكسية اللوك اللي هي وحا خيرك مقالدان يالا برواقدان حافظان تالله أمنك حافظان يالا ليس كمهلين وحلقوها لي بالقرآن وبمدارس القرآن وبمعلم القرآن وبتلميذ القرآن وحلقوها لي قرآن كبركديسة وحلقوها لي أرضيك كاللهية وحلقوها لي أرضيات قرآن كبرانيسة وحلقوها لي والدك قرآن كسيوضا ولعيتك بحنية وكفر حيا قرآن كي بيت دميسي قرآن كي بود دميي تفسير بالله بري حديث بالله قدري فقه بالله قدري محيا عقيدة الله قدري وما إلى ذلك ولا ليال وناقان عيار لقوم أهلين إسليا الله حولهن
iyo amnigan iyo tiradan iyo laguma helin barwaaqadan xoog iyo xeelad kale waxa lagu helay waa in la gartaa waa qur'aanka weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa doqoni qufaacday meel laga gaarayna ma taqaan wanaagan iyo darajadan waxa lagu helay waa kitaabka Ilaahay guulaysta Allah idin barakeeyo waalidkeen Allah kaal waalidkiis Allah kaal inkashaba Allah kaal macallinkeen Allah kaal macallinkiis Allah kaal inkashaba Allah kaal dariskeen Allah kaal dariskood Allah kaal inkashaba Allah kaal caruurta Allah inoo xifdiyo caruurta Allah idin la koriyo caruurta Allah idin ilaaliyo wiilasha darooga iyo baqti iyo jinni Allah idin ka dhowro maxay ahaydee jinni iyo jinkood Allah ka qabto gabdhaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala tarbiyadooda Allah idin hagaajiyo Allah idin xifdiyo Allah idin la koriyo Allah idin garab noqdo guulaysta madrasada Allah barakeeyo al-adala wa garanaya muddo 10 sano ah ayaan la shaqeynayay Abdul Fatah ninkii dhoofay iyo raggan jooga intaba waa rag runtii dadaal badan waaye waliba al-adaladan dambe xooga ay ku socoto Ilaahay subhanahu wa ta'ala habaritaaran leeyahay idinna garab u noqda guulaysta Allah idin barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullah